هذا عبد الرحمن أنا عبد الرحمن قبر في عنا أمي يجري والله بالله ترى قبر في عنا أمي يجري لكن فرحي كبير يروح يقول جناجتي ما أنت اللي هذا قبلنا مسكين تقول بك صومرتي كديتي كانوا عيتي لا تسوق جلس أوركو هلا عمره أنا هذا وحواي واحد جر أو الساق نمان عيب ماله كجاري والله أنا سموني هذا عبد الرحمن سبحان الله نمعان بإذا قدرنا نقوله بسم الله الرحمن الرحيم وهذا حصلته نينا كقبو حضار غير كان قبلنا حلاش أوركو وقاد مسكين تان حضرت إنا بربرسو وأذن كاي ولا بربرنا عبدوا هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوروا صاحب يلمل بدون الدافع على ذلك دورسي فضل شركة تدخل عصب تسكريب تلاقي كومنتك أنت بإنه صارا سوروا هذا وحندوني أنا كهلا عن هلا يولي بنحيس حرقه هذا عبد الرحمن أو يدري شيء كذا صاحب يال سدت كور هيسين أم ببذن كيناس سوشيال ميديا كو أركتين وحجره in la yiri nimcaan hilaac waxa iskuursadeen xiis xaraqo ha iskuursadaan muxma balse laakiin markii ay iskuursadeen kadib maxaa dhacay waxa dhacay inuu inantii cunsuriyadeeyay inuu Soomaaliland darnacaybnimo ku cunsuriyadeeyay sida sheegay way anu ma sheegin laakiin waa sida media ka socota inuu inantii maro babalo ka saaray inantii imka xaamilo tahay inay waxaan ku leeyahay waxyaabo system dhaqan xumo ah oo inantii kula dhaqmay sidoo kale arinka in ay ku jirto hodan Cabdiraxmaan iyadoo yacni leeyahay macna laaban ilmaadeernahay isaaqnimo nacaybna gabadhan uma guursan kartid waxyaabo noocaas ah waa sida social media ka socota sidoo kale hodan Cabdiraxmaan inantaa xumaysay xiis xarago ayaa afkeeda ka sheegaysa sida muuqaal hore aan kaga soo hadalnay bir hore laakiin sheekadu imka ay soo wada baxdayo hadda ay media toos u soo wada gashay sida la sheegayna inantaasu dhibaato ay qabtaa dhibaatana way tirsanaysaa sida in macna lacbiilkii ka goostay in waxyaabo qaldan oo u qalmaynin oo yacni sharafteeda bahdilaya oo kula dhaqmay hadaba daawade arinka isaga maxaad ka ogtahay hadii aad ogtahay commentiga noogu soo qor arinka isaga ma sax ba mise waa qalad maxaad ka tiri fikirkaaga iyo aragtidaadu way noo muhiim bal aan gudagalna inaga falaqaynteena iyo waxyaabaha yacni aynu ka oran karno saaxiibayaal arinkan isaga haday dhab tahay oo hodan Cabdiraxmaan ku jirto waxaan leeyahay hodan Cabdiraxmaan ay maanta mar waa tahay guri xanuunkiisa iyo waxaan ku leeyahay dhibaatadiisana waa dareemi kartaa waad ka warhaysaa oo adigu maanta marwo la qabo waxaas ayaa tahay gabadh uur leh xaaladaha ay marayso marxaladaha ay marayso xaaladda ay ku sugan tahay waad garan kartaa waa hooyo tahay adiguna oo qof wax soo dhalay hooyo ah ayaa tahay maadaama inanta yar imka ay tahayba inan yaro uguba oo markii ugu horeysay wax dhashay ah oo waxaan ku leeyahay maanta xaalad xun ku sugan xaamilana ah waad garan kartaa hooyo qof kasto soo maray hooyo uu dareemi karayaa maanta xiis xarago yacni xaaladda ay ku sugan tahay haddii sheekadaas ay dhab tahay oo la leeyahay hodan Cabdiraxmaan sheekada ay ku jirto waa sheeko dhab ah haddii ay tahay waxaan ka codsanayaa walaal macaan gabadha waa gabadh walaashaya waana inan yar oo cawra ah caarkana lama dabagalo xumaanun baa laga faa'iidaa waa sheekadaas haddii ay dhab tahay hodan Cabdiraxmaan anuu fikradeeda intaan ka aaminsanahay waa qof boqol wanaagsan nasab ah yacni dad jacayl oo waxaan ku leeyahay wanaagsan waa intaan ka aaminsanahay anigu amba intaan media intaan ka bartay ka arkay hodan Cabdiraxmaan maanta haddii sida la sheegayo ilmaadeernimo ay nimcaan hilaac ugu hiilinayso tanna maanta waa dumar waa iyada cid kasta uga dhow walaalkeed hadduu qaba xitaa hooyadeedii aabaheed dhaleen in qaybta dumarnimadu ay shaqayso mar walba weeye sheekadaas haddii dhab tahay oo jirto hodan Cabdiraxmaan waxaan leeyahay gabadhaas waa gabadh walaashaya nimcaan hilaac baa soo haray saaxiibayaal nimcaan hilaac waa nin raga isaga inanta jeclaaday sida la sheegay iskuursadeen hees wada qaadeen xitaa xumaanaha inanta loo geystay ee laga sheekeynayo amba media ka socdo waxa kamid ah heestii ay nimcaan hilaac iyo xiis xarago isla qaadeen xitaa uu ka saaray baraha bulshada amba YouTube-kiisa uu ka saaray dhamaantiin waa soo eegi kartiin inuu heestii uu ka saaray uu private geliyo amba uu delete gareeyba xiis xarago hadaba waqti xaadirkan xaalad bay ku sugan tahay waana hooyo yacni ugub ah xaaladdu markii ugub taagantayna qof walo hooyo ah uu dareemi karaa xaaladeeda dhabta ah xogtan rasmiga ah waxa soo gudbiyay ninkan tiktokerka ee Shariif ugu qorantay TikTok-tiisa muuqaalkan waa idin saraadi doona balse laakiin idinku maxay idila tahay arinkan isaga xaaladdu waa xaalad xun meel xunna way maraysaa heesti maxay ahayd hodan Cabdiraxmaan ay qaatay ahayd qabiil ma yaqaano dooq
qabiil ma yaqaano dooqo inantan xiis xaragana afkeeda siday ka sheegtay amba hadaladeeda siday hore uga hadashay waxay sheegtay in qabiil nacayb loo cusuradeeyay amba yacni qabiil daraadeed nolosheeda ay u burburtay war waxaan leeyahay wuxuu waa inan waxba cid kama gelin qabiil waxba kama gelin maanta waa hooyo xaalad bay ku sugan tahay maanta in la garab istaaga mooye in la xumeeyo xaq uma laha dee waxa la yidhi xalaashiisa xumeeya xakaara u dambeeya nimcanilaac waxa leeyahay nimcanilaac tol baa ku siiyey inanta sida la sheegayo inanta meher xalaala ayuu ku mehersaday baa la yidhi aabaheed baana bixiyey dee tolkiina way kala hadli doonaan arrinkaa isaga oo way la xiriiri doonaan laakiin waxaa leeyahay qofka dumarow qofka intaad moodaysid ma aha qofna weliga ayaa lahaa dumarow horta haba jeclaanina ragga ee aanu kula talin lahaa waxa jacaylka la yidhaa xididka jacaylka la yidhaa iska bedilaba waayo markaad qof jeclaatid sidan baa kuu dambaynaysa sidan ayaa ku dambaynaysa cidda doona ha ahaado nimcanilaac waa nin xaas leh oo marwale dee marwadiisu xitaa hawshan way geli kartaa waayo inan weeye inan yar oo miidyaha ka ooysa oo rajo ah oo yacnii nolol hooyo la-aana kusoo kortay oo markeedii hore stress iyo problem family iskaga furnaa oo waxaan ku leeyahay maantana tan dhibaatadan haysato biilkii laga jartayo meel walba baloog laga saaray horta xaaladeeda ayay leedahay dumarlaanimada ay shaqaynaysa ugu qaata saaxiibayaal haddii aan idii gafay weeye bal muuqaalkanna ila soo arka saaxiibayaal bal horta ila daawada inantaana waxaan leeyahay walaal macaan noloshu yacni inaad qofka mar walba noloshu ay xumayso amba yacni waxyaabo xun la kulmo waa qofka guuleysta mar walba samir salaada ilaahay tuko iska tasbiixso ilaahay baa wax walba kuu fududayn doona insha allah bismillaahi kariim kolley dee tol baad leedahay xidid baad leedahay dad baa ku siiyey hawshaas in la geli doono waa rajaynayaa 100% nimcana waxaa leeyahay nin caanaa tahay nin miidyaha ku jiraa tahay nin fanaanaa tahay inantuna waa inan fanaanada waa inan walaashaya waa inan dhiigaagiya waa inan soomaaliyeed waa inan sharaf iyo karaamo leh inanta qalbigeeda kaga ciyaar niyadeeda ka xumayn maanta awlaadaadiiba caloosh ku sidaa ilaahay iyadana nabad iyo khayr iyo caafimaad qaba ku kala keeno wax xumaanana alla ma tuso iyada iyo hablaha soomaaliyeed oo dhan aad iyo aad baa mahadsantahay saaxiibada qiimaha iyo qaayaha leh waxaa rajaynayaa in inantaas u guuleysan doonto hodan cabdiraxmaan raaligelin baa bartan u marinaya haddii aan ku qaldamay iga raanoqo haddii ay arrinkaas u saxtay jirtana dee walaalay macaanay inantaas waa inan walaashaya aad iyo aad baa mahadsantihiin maalin khamiis wanaagsan meel walbaa joogtaan barnaamijkan waa barnaamijkii celebrity storyga gabadhan oo dhibaatada loo geystay gabadhan dulmanaha gabadhan mataqaanaa dhibka ku dhacay arba hadda inaan idin wadaago fanaanada xiis xarago taariikhdeeda faayo iyo ninkaa meesha isku barteen iyo meelkooda arooska ka dhacay magaalada muqdisho sanadkii hore haddana uur 8 bilood hadda gashay iyo xoogaa ay u leedahay ninkan oo meel walba loo ka saaray bishii Janaayo ay muddo 5 bilood ah waxa waa biilka waa ka jartay waxa waaye mataqaanaa meel walba